بسم الله الرحمن الرحيم ولي waxaan wada dadka igu xidhan ama madasha badbaadi naf iyo barnaamijkan dhigisiinta ku xidhan inaynu barno dhiigga iyo noocyadiisa iyo xaqiiqooyinka dhiigga ku saabsan maanta waxaan dul istaagi doonaa haddii ay xukumayo xaqiiqooyinka kooban oo dhiigga muhiim u ah si ay dadka aan caafimaadka waxba ka aqoon ama ma garanaysa aan bahda caafimaadka inaynu fahansiino dhiigga iyo wuxuu yahay dhiigga wax Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoogu deeqay oo nolosheena qaabeeya dhiig waa wax laga helo guud ahaan jirka aadamaha sidoo kale waxaan la'aantii noolaan karin marka hadii xukumayo dhiig marka uu wadneenu isgaraacay oo garaac sameeyo waxa aynu halkaas ka helnaa hadii xukumayo oxygen salahaan weyn ognaayo Ilaahay wuxuu qaabeeyay wadneena inuu guriyo ama qolal u kala saaro qolka bixiyay midigta hadii xukumayo qaybta midigta waxa soo galay dhiigaan oxygen line kadib dhiigaan oxygen line baa loo diraa sababka oxygen ku soo dara waxa soo qaada valveski qaybta bidixda ay keenan hadii xukumayo qaybta bidixda marka ay keenan wadnihi wuxuu dhiigii oxygen-ta lahaa ee nolosheena u baahneed uu soo qaybiyaa jirka intiisa kale waxa aynu ognahay muhiimadiisa dhiigu sidoo kale waxa uu leeyahay hadii xukumayo protein uu leeyahay sidoo kale wuxuu leeyahay qaybo ma garanaysaa dhiigga ka caawiya xinjiro inuu sameeyo marka uu qofku dhiig bax la soo gudboonaado waxa aynu aragnay dhiiggeena inuu xinjir samaysto xinjirtaas wax kale maaha waxay qofka ka saacidaa inaan dhiig badan ka bixin waadii xukumayaan qofku dhiig bax ama shog aanu u dhiman guud ahaan waxa la tilmaamaa dhiig inuu ka kooban yahay unugyada cas iyo cadcad ee dhiigga kuwa waaweyn ah waxa uu heliyaa qaybta xinjirowga ee plateletska loo yaqaano waxa uu heliyaa qaybta dareeraha plasmada ah sidoo kale waxa uu heliyay proteinada aynu soo sheegnay sida albuminka waxa sidoo kale iyagu dhiigga ka maqnayn immunoglobulins oo ayaguna qaybaha difaaca dhiigga horeen u soo tilmaanay oo sheegnay in bag dhiig ah ama magaras 450 ml oo dhiig ah ay badbaadin karayso nolosha saddex qof oo inaga hore soo dul istaagnay barnaamijkeeni ka horeeyay وإنك ميت كلا شيء أو سنة هاي ضعف ما تكادون كاتلمام سو إن لبدي دقيقين كاستسالان كو لبا دنيا جود كذا وقفني جبهي هاي سددون هاو بعنا هذا مشينا لا كل ما أما قلين هجلو أما مجرس حالك لا سجود بويناتي وإنك الشيء ناي إن مجرن سا إن وحاس باهلا صوتنا إحنا قد درسنا إنه أولنا مجرد نساو برنامج كله دون أو كان عاو كميديا هاي أو أي تاي إنه ندوت كي برنامج مهمة دليل يولي ليجي إنه شيء نسيجو بان تاي سي مهم تاي إنه ليجو هلنو سيدا إنه نوجا مارم كرين سيدا مجرد نسا إنه أولاد دبعت تونا مرك حانو ليجي سامي يعني حليلا صالحان هبل ما بهبلايو ديجلان بحي سبب مغلسة ديجلان تسمح كيني ديجادي وكفلنا وعيقف كنتي لو ترى عادي شركة سكرتي qofku waa xad ogtay inaan noloshiisa caadigeeda ama nolol maalmeedkiisa ay adag tahay inuu sii wato inagu taa ka duulayna waynagana 10 bilownay marka kan wuxuu ka mid yahay 10daas oo muddo socda hadii ay xukumayo dunida waxay haystaan salahaan imka Telecom sanadkii intee baa dhiig u baahan sanadkii intee baa dhiig shubta inagu isu kooban tahay sidaan ila xogaal ku hayo cilcilsaan bishii ama sanadkii cilcilsaan bishii isbitaalka Hargeysa 350 qof baa meelaha dhiig ku tabaruca وترى أدي ير مركز الله يجو دلك كمول نرجس أو لما تقول سهل مدينية ديران وحوي ولما دونية مدرسة تركوب قسم سواء شيئا بقول كيف الشن يتضوات دلك اللي جنبه التبرع أي سنة ديك إن أنا مركز الله عريني كتبرعان أو أي على تاي إنه نقض قفقاس تبرع ديك أو شوك تأه أو أي تهاي جبيس وإنه هي مر إنه سميه لك سان صلابا marka waxa aan uga goolayahay inaan idin fahansiiyo in aynan barnaamij dhiig ka maarmi karin in ahaato qaybta xinjirowga dhiiggeenu u baahan yahay ahaato qaybta dareeraha ahaato qaybta cad ee inaga difaacda xanuunada kala duwan ee ilmo aragtayda ah oo WBC-da Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu qaabeeyay in qaybo kala duwan ay u sameeysan yihiin oo qayb kastaaba ay la dagaalanto ilmo aragtay ma garanaysaa xanuun inagu sabab lahaa هذا تاي فيروس هذا تاي بكتيريا هذا تاي مجرسا وحيالها كله مجرسا ميكروب كيامل الماركتيجا وين يجي خلاص شيء عند ديجو باهنا كميدين دت كشيلار كلا كل مو أدي هذا النوع بدن دت كمجرسا دت كم حنونا خالص تاي حالي لان كانسر كوكلا مجرسا وحنونا وقت قدير قف ولنا لنوري هي ديجلان تكسر واي حالي لان دت باتشرة إلهي أمر كيس كسر الشعب واي حالي لان حنونا ديجا سامي
oo magaraysa xanuunada blood disorder-ka marka laga yimaado tusaale ahaan waxay noqon kareen xanuuno hidaahan qofku ku qaaday iyo xanuuno ay kansarada qaar ku sababeen tusaale ahaan qof baa ilaahay subxaana watacaala aanu uba abuurin dhiiggiisu inuu xinjiro yeesho oo qofkaas haddii dhaawac soo gaarin dhiiggiisu iska baxaya oo ay adag tahay in la joojiyaa waad ogtahay maalin kasta qalliin baa la galaa qalliin la iskama galo magaraysaa dhiig la-aan ama dhiig aan diyaarsanin waayo qalliinkii qofka marka lagu sameeyo dhiig baa ka baxaya waa muhiim dhiiggii ka baxin qofkii loogu celiyo si noloshiisii wato ilan dhiiggii haddii uu kaa baxo oxygentina uu kaa baxaysa oxygenta la-aanteedina unugyadii jirkaaga muhiimka ah maskaxdii ugu weyneed ma noolaan karayse wanagii sidoo kale waxaan dul istaagi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo dhiig marka maanta la qaadayo qofkii uu imaado cusbitaal uu magaranaysaa la weydiiyo magaranaysaa dee waxyaalihii magaranaysaa muhiimka u ahaa in la mariyo xeerarkii muhiimka u ahaa tusaale ahaan daadiisi la ogaado haddii waanu qaangaar ahayn magaranaysaa qofkii dee la yara hakiyo la ogaado caafimaadkiisii qofka dhiig baaris loogu sameeyo si isaga iyo magaranaysaa qofku dhiigii siinayaba labadaba noloshooda haddii maayo loo badbaadiyo loona lagana dhigo qofka dhiig bixiye bad qaba ku siinaya inuu noqdo dhiig bixiye bad qaba waa inagana dunidu xeerar bay u samaysay iyo kriteeriyooyin la mariyo si haddii eeba xukmahayo dhiigga loo dhowro badqabkiisa tusaalaha maanta haddaan anugu dhiig shubayo marka magacayga iyo da-deyda iyo miisaankayga la eego waxaa la baari doonaa caafimaadka dhiiggayga tusaale ahaan waxaa lagu samayn doonaa screening in layga baaro xanuunada qaarkood dhiigga ku gudbi karaya ha ahaadan joneska noocyadiisa kala duwan ha ahaadan xanuunada kale galmada lagu kala qaado waxa kale oo sidoo kale lai eegi doonaa inaan buuxin karayo medical examinationka labaa laga samayn doonaa oo fudud oo simple ah oo tilmaamaya oo intaasoo dhan waxay ka turjumaysaa badqabka caafimaadka jirkayga iyo dhiiggayga kadibna waxa qofku maraa magaraysa habraacii loogu talagalay in magaraysa qofku dhiig ku bixiyo kadibna markuu qofka dhiig dhammaystiro ee dhiiggiisa la hubiyo ee dhiigii bixiyaa qofka aqoonsi la siiya inuu yahay dhiig bixiye blood groupkiisii ku qoran tahay magaciisi ku qoran tahay waana ta aan doonayna inaanu sii kobcino dadkeenana aanu magaranaysaa barno in uu qof kastaaba certificatekiisa dhiig bixineed iska sito iska haysto walilahi alxamdi marka haddii xukmahayo haddii aan idin yaro sharaxo yaa dhiig bixin karaya miyay jirtaa shuruudo ku xidhan in qofku dhiig bixiyaa waxaa jirta fikrado mala awaala oo dadkeena qaar iska aaminsan yihiin tusaale ahaan inaanay dumarku dhiig bixin karin haddaba aan idiin soo dursaago horta dhiig waxa bixin karaya lab iyo dhadig waa siday WHO-da ku qeexdo magaraysa ama hay'adahan blood donation ka shaqeeya qof lab iyo dhadig ku doona ahaadee laakiin da'diisu u dhaxayso 18 jir ilaa 60 jir miisaankiisu uu ka sareeyo 45 kilogram sidoo kale heerka cabirka dhiiggiisa magaraysa hemoglobintiisa lagu qiyaasaa dhiiggiisu ay tahay in ka badan 12 gram per deciliter oo ah ragga halka dumarkana ilaa 13 ay tahay magaranaysaa in dhiiggeedu yahay waayo dumarkooda ogtahay inuu sanad kasta waxay helaan iyagu dee marxalad dabiici soo maraano dhiig baa ilaahay subxaana watacaala ka sii daaya bishiiba mar magaranaysaa marka iyaguna halkaa haddii aanay gabadhu magaranaysaa isa soo nafaqeyna ma magaranaysaa dhiiggeedii dib aanay soo cesheen halkaa waxaa dhici karaysaa in ay physiological anemia iyo waxyaalahaas ku dhacaan markaas sidoo kale uu qofkana caafimaad qabo markaas qofku dhiig bixiye noqon karaya yaan haddaba dhiig magaranaysaa bixin karin waxaan bixin karin qof la dhibaataysan xanuunada dhiigga saameeyeen soo sheegnay dhiigga ku dhaca hemophilia haday tahay thalassemia haday tahay magaranaysaa xanuunada magacyada badan le magaranaysaa dhiigga saameeya qof haddii xukmaayo wadna xanuun leh qof haddii ilaahay xukmaayo keliyiisba xanuunayaan ama keliya fadhiisteen isagaaba u baahan kaasi in dhiig la siiyo waayo keliyuu qayb weyn bay ka qaataan soo saarista dhiigga qof magaranaysaa beer xanuun le magaranaysaa xanuunadii beerka saameynaya ee haleeleen waayo wax fudud inuu qofkaasi u gudbin karayo xanuunkii qofka kale qof magaranaysaa qanjirkan thyroidka oo kale uu xanuunayo oo magaranaysaa xanuun uu asiibay dadka badanaa maskaxda magaranaysaa xanuunada maskaxda saameeya leh dadka magaranaysaa suuxdinta leh dadka la nool ay hayaan xanuunada magaranaysaa TB-da oo kale iyo leprosy-ga xanuunada ay keenaan bacteriooyinkan mycobacteriumku kadibna qofka la xiiqda ma fahantay oo waayo qofka markiisa hore oxygen ku sii yaray ma fahantay qof cancer leh isagaaba u baahan in magaranaysaa mararka qaarkood dhiig loogu tabarco sida oo kale waxaa le qof magaranaysaa maanta inta la qalay qofka la qalay waxaa lagula taliyaa badanaa sanad inaanu dhiig u tabarcin haddii uu magaranaysaa qallinkii alxamdulilah kasoo faraxsho ka kacay
dadkan typhoid la haysta xanuunka xamada yaree magaraysa fika oralka ah qaba magaraysa bacteria typhoid qofka ay haleeshay qof ay qaniinay ama xayawaan kale qaniinay hadii uu xukumayo qofka aan la sharxi karin miisaankiisi oo si degdeg toos u dhacay laakiin aan la garan wixii sababay inuu qofka miisaankiisa hoos u dhaco iyo qof xumad joogti ah laakiin laimka diagnosis aan wili lahayn sidoo kale waxa badanaa la yiraahdaa qofka tattoo qofka sameeyay dadkan ma garanaysa inagu inta badan ma sameeyay maadaama in ummad islaamanayo ay xaraan ka tahay dadkaas waxa lagu taliyaa sidoo kale inaanay 6 bilood dhiig shubin dadka ma garanaysa ilkaha laga saaro oo kale dadka loo sameeyay root canal treatment ko kale iyaguna inaanay dhiig shubin baa lagu taliyaa dadka ma garanaysa kaneecada xanuunka la yiraahdo ama dumada asiibto iyaguna sidoo kale waxa way ka baxsan yihiin criteria ama ma garanaysa shuruudaha dhiig bixiyaasha iyo dadka magarasa talaal qaatay oo hadii waayo inta muddo talaalkaasi qofka ku sii jiro way talaalku waxa weeye dad talaalkii Johnska oo kala maanta qaatay inta muddo talaalkaas magarasa jirkayga loogu talagalay durationka intaas waxa muhiim ah qofkaas inaan dhiig shubo marka intaas laga imaado aynu soo sheegnay hadii uu xukumayo qofka magarasa riski ugu jira halis ugu jira waa in la ogaadaa isaguna xanuunada galmada lagu kala qaado sida HIV oo kale وين قفك مقرنسا لوغان كراي هدي لوغا شاكيو مقرنسا بارتنركي سيو نحابك وجماعي جيرين إيو وحيالا سدي قفك مقرنسا خاص بدن ليايو وحيالا سوى مهين دادك قار داوين كان مقرنسا سخرد داكا قاطا حيديس كوكالي كواسو كالي يبن ودادك لغا سارو إناني ديك شوبين intaas marka aynu ka nimaadno hadaba gabadha aynu u imanaynaay waayo dadkeena aad iyo aad bay waliba dumarkan u aaminsan waxay aaminsan inay gabadh dhiig shubi karin inta aan xirfadda caafimaadka ku jirin marka gabadha hadii ay dhiig shubayso waxa ku xidhan shuruudo gabadha waa inaanay horta uur lahayd hadii ay xukumayo ay dhiig shubayso hadii ay uur lahayd oo ay umushayna waa inay sanadka bacdi umusheedii ay dhiig shubi karaysaa waa inaanay sidoo kale aanay naaska ilmaha jaqsiinayna hadii ay doonayso inay dhiig shubto hadii ay xukumayo waa inaanay magaranaysaa waqtigeedii magaranaysaa dhiigeedii haydka aanay magaranaysaa aanu ka socon oo ama way ka soo wareegay rabto inay dhiig shubto waxyaalahaas baa dumarka badanaa aad iyo aad loogu tixgeliyaa si ay dhiig shubaan inta hadii ay ka biri tahay oo ay ka madax banaad ay gabadhu diyaar waxay u tahay inay dhiig shubi karayso raggii aynu nimaadno ninku xilli kasta dhiig oo shubi karaya hadii uu caafimaad qabo shuruudihiina uu buuxiyay laakiinse waxa isagana mid ba aad iyo aad loogu xidhaa oo shuruud aad iyo aad muhiim ah qofku waa inaanu way dhahdaan 24 saac ay ugu dambeeyay aan wax daraag ah isticmaalin ama wax khamr ah aan isticmaalin intaas marka laga yimaado qofka waxa la mariyaa baaris yar oo caafimaad oo ay ka mid tahay magarasa in la eego nooca dhiigiisa tusaalaha ma eeba ma eediida ma ooba ka uu yahay horta cosmology lagu sameeyaa marka la leeyahay dhiigi groupkiisa la eego ayaa qofka la cabraahay HB-giisa ama hemoglobintiisi si magaranaysa hadii isaga uu baahiyay dhiig lagu shubay hadii magaranaysa uu shubi karay loo kala ogaado sidoo kale waxa la cabiraa qofka blood pressure-kiisa magaranaysa heerka xadiga magaranaysa cadaadiska dhiigga inta marka laga yimaado waxa qofka la cabiraa per minute magaranaysa minute-kii intee jeer buu wadnihiisu iskaraacaya intaas marka saala soo dhameeyo qofka waxa uu qofka hawlwadeenka caafimaadkii uu eegi doonaa wuxuu sameyn doonaa guud ahaan inuu si guud ogadiisa iyo jirkiisa iyo waxyaalaha ugu eegto uga dhigto inta hadii uu xukumayo wax muhiim ah inaynu xusuusnaano oo aynu xusuusnaadno habraaca dhiig bixinta habraaca dhiig bixintu maxay tahay waa in aad magaranaysaa qofku uu nafis dareemayo waa in magaranaysaa sidii qof jiifo kale uu yahay marka uu dhiiga bixinayo hadii uu xukumayo oo meel fiican oo sariir fiican oo loogu talagalay oo magaranaysa aan qofku dibsan oo hela waa in qofku magaranaysa heli karayo waxyaalaha yar cunto yar fudud magaranaysa oo iska isticmaalo marka waa in qofku maskaxiin diyaar yahay waa in salaamada dhiig bixiyayo in rabina dhiig shubo waa in soo diyaar garooba si aan dhiig u shubo oo maskaxdeedu ay diraali ka tahay oo aanay baqasho jirin oo aanay diyaar werwer jirin oo aanan waxyaalo kale ka fikirin inta markii aynu soo dhameeyno miisaanki waynu sheegnay oo waynaga dhawaan waa 45 iyo wixii ka sareeya daadii waynaga sheegnay shuruudihii ku xidhnaa waynaga sheegnay waxyaalihii screening loo sameeyayna waynaga sheegnay kamid ahaayeen xanuunada HIV-ga hepatitis B iyo C oo aad iyo aad muhiim in la iska baaro aad bulshadeena ma garanaysa
بريان دم وصوص بونانا يجدون حكم رسمي اللي جحين وحن دكتور سينا موسى جمال بوحي لو بربود أي قيبها بنوت الليج دلكو أي سميين labadii kun iyo 16 oo ay ka qaadeen dadkii in dhiig shubano yimid isbitaalka intii noqotay hepatitis positive-ka oo aan iyadoo ahayn tiro yar intaas hadii ay xukmaayo marka dhiigii shubto ee aad dhiigii soo kala baxdaan tala yar bogsiin doona hawlwadeenka caafimaadka oo taladaas maxay tahay wax ula talin doona 24 saacadood extra intii aad dhiig shubto inaad cabitaan fara badan aad cabto وأنا عبتان بدن استعماشها مشرابة مبيو وأنا تسكيل على ساينة سيجار عبتو بعد يبقى مع أيام وحياة الكحول عبتو وأنا اسكت ذا أنا أنتوين فوق أنتو هدي يبقى مع أيام هنا مركب هنبيو وحول بس وخاضو سيدو كلا وحاي كروت اللي يعني نبغى سكير تبي إلفيتر نبغى نويشش نبغى هيس نوك القاعدة ما هيس نبغى قرية هدا دير قرية نويسك جايبي قف كانوا على قولة اللي يعني عنو marka uu dhiiga soo bixiyo inaan isku raacin hiiska maayo way yarida waqtiga qofku saacadaha yar hore ilaa intuu dawaqada kala mise qofku sidoo kale waxa laga ilaaliyaa inaanu jimicsi saa'id sameyn markuu dhiiga soo bixiyo sida oo kale maanta aynu iska nastaa fiican oo aanu ciyaar iyo buuq iyo wareer aanu qofku magaran saadiyad maayo aanu u diyaar garoobin intaas ka bacdi qofku waxa laga yaabaa 10 ilaa 20 minute yarada waqsanaad inta ka dambaysa oo caadi iska noqdo qofku hadii xukmaayo 4 saac ka bacdi waan iska fura bandeeska yar ee lagu soo dhijiyo si aanu dhiig uga bixin intaasi ee xukmaayo qofku waa inuu isku dayaa haduu yara xanuun yahay dareemo inuu uu qaato waxyaalo yar oo qabow garanaysaa istijiyo mar walba intaas hadii uu wax dheeraad oo isku si arko oo warwaro misra waxba ka khaldan waan hawlwadeenka caafimaadka la xiriirayda maxaa khaldan marka tala fiican bala siin doona hadii xukmaayo oo ay ka mid tahay magaranaysaa sidii magaranaysaa uu xaaladda ku soo kordhay magaranaysaa ula tacaala inahaas aan dul istaagay waxay ahaayeen waxyaalaha muhiimka u ah qofku in uu magaranaysaa hadii xukmaayo uu sameeyo hadii aynu inta ugu dambeysayna u soo gudubno waxaynu sheegnay maxaa imka tusaale ahaan marka qofku uu sameynayo marka qofku donation sameynayo ama uu dhiig sameynayo maxaa say tahay qofku waxaan xusuusin lahaa in uu maalmo cayin saraan maalmaha qaranimada kale maanta ilaahay dartii baan dhiig u bixinayaa iyo maalmaha garsa munaasabadka khayrka ilaahay maanta ilaahay dartii baan dhiig u bixinayaa uu dadka midafarimaa motivationka isaga iyo dadka dhiirigelinayba uu sameeyo بالله الحمد عشرة رجع جاهم بصينا وصل يارن دونا حان هاكم السلام يقول هني تقول برنامج كان حان مركز تبع حسين ميمد أيدي بينتو لا هاي وضمنه حان ما نغير كمرة ما كبرنامج كان أو سينير إديتر أسد أو عادية أنت بدن مقلنا قروح بدن هذا الثاني سو جارسية إن شاء الله كوا كلا بدن نبي سو جارسين دونا عادية بدن ما سدين وحان وضمنه لا هاي أنا سين الديك أن درن ميمد ديك اللي بدهان ummadda Soomaalida gaar ahaan islaamka dhiiga la siiyo cid walba ka aqbali karina dhiig inagu aan ku takoorin midabkiisa diintiisa ma garanaysaa iyo wax waamsiye kaliya caafimaadkiisa mideegana iyo shuruudiin bixiyay dhiigna waynu soo siinay mahadsanid